بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ولا ليال السلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تكذب وحين أقصونا هاي حين ولا ليال كل حجرنا بشهر رمضان بركة سنين. رمضان shalay bay bilaabantay, maantana waxay maraysaa qaybteedii saddexaad ayaynu qarka usii saaranahay. waxaan rabaa kelmad kooban oo aan rabo walaalaha muslimiinta ah inaan xasuusiyo fadliga tobanka dambe uu leeyahay iyo sida uu mudan yahay laga faa'iideysto inaan halkan ka idhaahdo. tobanka dambe walaalayaal waxay kaga duwan yihiin bisha Ramadaan inta kale fadaa'il aad u waaweyn oo aan 20 hore ku jirin ayaa ku jira. waxa kamid ah waxyaabaha ay gaarka la tahay quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala bashariyada uu soo dejiyay ee nuurka ah ee loogu talagalay koonkan in lagu hanuuniyo. waxa la soo dejiyay tobanka dambe bisha Ramadaan ma la soo dejiyay inna anzalnahu fi laylatil qadr وقال أيضا إن أنزلناه في ليلة مباركة. ساس أوجد فضل قوين طبعاً قدام بي إليهين وإن إله سبحانه وتعالى وقدري إن طبعاً قدام بقرآنك إله سبحانه وتعالى وسودتشيو سجل بشو قرآنك طبعاً بارا مركا سيله. لذلك حسوسنا ولا لاهي قرآنك آخر تيسا عاد لو فربديو طبعاً قدام به. قبل كلابات waxaa ku jira bisha Ramadaan gaar ahaan tobanka dambe habeenkii loo yaqaan laylatul qadr. habeenkaas oo cibaadada qofka muslimka ah uu sameeyo ay ka fadli badan tahay kun bilood amal uu sameeyo ay ka fadli badan tahay. waxay culimadu yiraahdaan amal habeen la qabto amalada ugu fadliga badan leh weeyaan habeenka laylatul qadr ee qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu waafajiyo. عمري هان وحنا نقولنا ودور يسديت صنع يكدي تاعي كون كبلاد. لذلك وهبين آدي قاليا إن إلهك وافتشيانا حق إلهي بكحران تاعي، لكن إنك واحد لنا قدونيا لذلك هي أسباب سنة معنا. فضل كستحاد طبعا قدام وحيابها فضل إليهن يعني بهنا إن كو عمرنا واحد كم ده ليلة القدر جانا كهرينه إن هبين كل استاجو ولا تكدو. النبي صلى الله عليه وسلم وحكى عن صحيح في صحيح مسلم عائشة إن تري طبعا قدام النبي مرك اللي قالوا عليه الصلاة والسلام النبي يقول واديار قروب عليه الصلاة والسلام إهل كي سنوات وسنشري هبين كي سنوات نورين شري النبي عليه الصلاة والسلام كنت أنا وقيشنشري عليه الصلاة والسلام تمام هذا حوية النبي عليه الصلاة والسلام asaguna khayrka iyo wanaaga ayuu u kici jiray oo cibaadadu u kici jiray ehelkiisa iyo usradiisa iyo xaafadiisana khayrka uu la jeclaa nabigu calayhi salaatu wassalaam. saas awgeed waxa waxyaabaha aadka u fiican sunnayaasha kamid ah in marka adigu kacdo aruurtaadii iyo xaafadaadii iyo ubadkaagii iyo ehelkaagii intii guriga kula joogtana aad kiciso iyo inta kale awoodi karayso ajar baad ka helaysaa. عائشة الله مركز النبي عليه الصلاة والسلام بشهر رمضان في صحيح مسلم قارهان طبق الضنبي هذا الصوت قالان آد بقول ددال شري ددال آن وددال أنت كلا ددال رضي الله عنه وأرضاه. قومك أفراد أعماش آد كمهم أوه في عن أنت طبق الضنبي الله قبضه حكم ذا إلا اعتكاف هو إن مساجك اللي قلنا قاعدوا مدقوا صالحان طبعاً كعشاء رمضان نضم بيه أو كلام أيضا خير عبادة يوناق حويه مساجك اللي تشوفه وهذه عاد مركا نبي عليه الصلاة والسلام سجنا كسرناتي عائشة يكون في صحيح البخاري إن انتري نبي عليه الصلاة والسلام طبعاً ضم مركا سواء قلان واعتكاف تربي الذي رضي الله عنه وأرضاه حتى توفاه الله إلى ما ينبي أنتي عليه الصلاة والسلام. markii nabigu uu dhintayna dumarkiisii ayaa asaga kadib
ictikaafay. ictikaafku markaa wuxuu ka mid yahay acmaasha aadka u waaweyn ee bisha ramadaan nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam, gaar ahaan tobanka dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray. walidaalika waxaan kale asna baraarujinaynaa in sida xadiidkaba ka muuqata haweenka qudhooda iyo dumarka qudhooda ay u bannaan tahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam iyo xilligiisii dumarkiisina ay sameeyeen, asagoo noolna ay sameeyeen, markii kadibna ay sameeyeen, muslimaadkii kalena ay samayn jireen inay bisha ramadaan ictikaafaan, gaar ahaan tobanka ramadaan ay ictikaafaan. sidaas awgeed waxaa runtii aan xasuusinayaa walaalaha muslimiinta ah, dumarkana iyaguna inay dee waxa weye ku talagalaan, zawjaadkana waxaan xasuusinayaa dadka walaalaha ee kale ah inaan loo diidin, oo haddii qofkii dumar ahaa ama aabaheed ama ninkeedii ama ehelkeedii cid ka mid ay la ictikaafto inuu yahay khayr iyo wanaag iyo sunne iyadana waxa weeye la nooleeyey. waxaanu ka mid yahay waxyaabaha weli inaga ka Soomaali ahaan sunnahaas aan agteena aada ugu dhaadhicin, oo dumarka waxa weeye ama xaggooda ha noqoto ama inaga adag xaggeena ku jira ha noqotee aan ictikaafka ma aana aad iyo aad xaggeena ugu badnayn dumarka. taasna khayrkaana dumarka insha allahu tacala waan xasuusinaynaa. afartaa qodob iyo waxyaabo kaloo fara badanba waxaa looga faa'iideysan karaa tobanka dambe ee bisha ramadaan. waxaan kusoo xidhaynaa walaalayaal kelmaddeena tobanka dambe ee ramadaan fadligoodu aad iyo aad buu u badan yahay. marka waxayna saaran oo qof kasta oo inaga naga mada saaran inaan u diyaar garowno. maanta bishu waa 19 waxaa hadhay oo ka hadhay waa hal habeen. halka habeen wixii ka dambeeya ama 9 habeen baa ka dambeyn doona ama 10 habeen baa ka dambeyn doona. waqtiguna waa ordaya, orodkaa waqtiguna wuxuu ka dhigan yahay cumrigaaga oo soconaya. warna uma haysid ramadaanta dambe miyaad gaari doontaa si aad tobanka dambe aad uga faa'iidaysato mise ma gaari doontid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.